Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. 40 qof ayaa lagu sheegay inay ka mid ahaayeen shabakad ka jirtay galbeedka Muqdisho isla markaana dilal ka geysan jirtay halkaasi. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukunka raggaasi eedeysanayaasha ah. magacyada xubnahaasi la xukumay ayaana kala Shaceeb Cabdullaahi Maxamed oo lagu xukumay dil toogasho, Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar oo lagu xukumay dil toogasho, iyo Maxamed Cismaan Axmed oo lagu xukumay xabsi daa'in ah, iyo si la mid ah Ismaaciil Maxamed Aweys ayaa isna lagu xukumay xabsi daa'in. Bismillah. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. شعيب عبد الله محمد 23 jir ah ina wiilo Axmed Maxamed ku dhashay Diinsor. 2 Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar Xuseen 22 jir ah ina Kaamilo Maxamed ku dhashay Xamar. 3 Maxamed Cismaan Axmed Cumar 24 jir ah ina Aamino Siidow Farey ku dhashay Xamar. 4 Ismaaciil Maxamed Aweys 24 jir ah ina Baarliin Sheekh Aadan ku dhashay Kismaayo. 4 eedeysane waxaa si wada jir ah loogu soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan ee ka howlgasha galbeedka magaalada Muqdisho. Eedeysanaha koowaad Shucayb Cabdullaahi Maxamed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu fuliyay dilal ay ka mid yihiin 28 bishii 6 2017 wuxuu degmada wadajir ku dilay marxuum Xuseen Macalin Cali Jilcow. 2 9 bishii 12 2017 degmada wadajir wuxuu ku dilay marxuum Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud. 3 5 bishii 5 2018 degmada wadajir wuxuu ku dilay marxuum Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar. 4 27 bishii 11 2018 degmada Dharkeenley wuxuu ku dilay marxuum Cabdi Cali Maxamuud oo ahaa nin shacab ah oo ka ganacsada hilibka. 5 14 bishii 5 2018 wuxuu dhaawac xabadeed u geystay dhibane Cabdiraxmaan Maxamed Cali. sidoo kale waxay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolad teete ah isla markaana uu ka soo fashilmay dilka dhibanad Baarliin Cabdi Warsame. eedeysanaha labaad Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu degmada Dayniile ku dilay marxuum Maxamuud Xasan Ibraahim 31 bishii 3 2019 kadibna ay ciidamada amnigu ku qabteen bistooladii uu dilka ku fuliyay. eedeysanaha saddexaad Maxamed Cismaan Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu wada ka ahaa mootobajaaj uu u adeegsanayay keenista iyo qaadista bastooladaha lagu fuliyo dilalka qorshaysan. sidoo kale waxaa lagu eedeeyay 28 bishii 2019 in uu qayb ka ahaa dilkii fashilmay ee la damacsanaa dhibane Baarliin Cabdi Warsame, iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen isagoo ku wada mootobajaaj eedeysanayaasha koowaad iyo afaraad oo ku hubaysan 2 bastoolad. eedeysanaha afaraad Ismaaciil Maxamed Aweys waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in ciidamada amnigu soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolad Biljim ah isla markaana dili rabay dhibane Baarliin Cabdi Warsame. doodeer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu Al-Shabaab kaga biiray degmada Diinsor, gaar ahaan qaybta dabagalka markii ay dawladdu la wareegtay Diinsorna ay Xamar u soo guureen ehelkiisa, isagana uu dib ula xiriiray kooxda Al-Shabaab isagoo ka mid noqday qaybta fulisa dilalka qorshaysan, fuliyayna dilal ay ka mid yihiin dilkii marxuum Xuseen Macalin Cali Jilcow, Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud, Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar, Cabdi Cali Maxamuud. sidoo kale wuxuu eedeysano Shucayb sheegay in isaga iyo eedeysanaha labaad Saadiq ay wada geysteen dil. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Maxamed Cismaan Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab
uuna tashkiiliyey ilka case isagoo qaabilsanaa inuu wada ka ahaa mootobajaaj uu u adeegsanayay keenista iyo ka qaadista bistooladaha lagu fuliyo dilalka qorshaysan. sidoo kale wuxuu sheegay eedaysanuhu inay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo mootobajaaj ku wada eedaysanayaasha Shucayb iyo Ismaaciil oo ku hubaysan 2 bastooladood. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Ismaaciil Maxamed Aways uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab tababarna uu ku soo qaatay Mubaarak markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdishona oo la kulmay horjoogihiisa ilka case oo u diray 3 howlgal oo dhammaantood fashilmay oo uu ugu dambeeyay howlgalkii fashilmay oo uu ku doonayay in uu ku dilo Baarliin Cabdi Warsame. markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la horkeena midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo jooga bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka ay soo martay mootobajaaj ay saarnaayeen eedaysanayaasha kala ah Shucayb Maxamed Cusmaan iyo Ismaaciil markii ay joojiyeen ay baaritaan ku sameeyeen kadib kana heleen 2 bastoolad sidaasna lagu qabtay. sidoo kale waxay sheegeen maragu in eedaysana Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar uu 2 xabad ku dhuftay marxuum Maxamuud Xasan Ibraahim kadibna ay iyagu qabteen isagoo ku hubaysan bistooladii uu ku dilay marxuumka. markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin 1 cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha 1aad 3aad iyo 4aad 2 sawirada iyo waraaqaha cadeynaya dhimashada marxuumiinta sare ku xusan 3 2 bastoolad oo biljim ah iyo 1 bastoolad oo teete ah. markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 4 eedaysana ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile shabaab Shucayb Cabdulaahi Maxamed dil toogasho ah 2 dambiile shabaab Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar dil toogasho ah 3 dambiile shabaab Maxamed Cismaan Axmed xabsi daa'in 4 dambiile shabaab Ismaaciil Maxamed Aways xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.